wadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ku soo dhawaada waxaynu ku sugannahay imika dalshirka taasoonaayeen ku sugannahay oo ay arkaysaan dadka isugu soo baxay yani waxa weeye waxa loo soo baxay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa loo soo baxay soo dhawaada dad badan ayaa ka dareeray marna imanayay marna ka dareerayay والله dalshirka taasoo iyo dadweynaha iyo dadka rasaasta dhacaysa waa damaashaad wax kale maaha waa farxad waa damaashaad halkaas isugu imanayaan ilaa saaga waa la imanayay waa la tegayay ma yar nidaamsana dadku oo maaha banaanbax waxa weeye waa jib waa dad qiiraysan oo dareen galay oo ku soo baxay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyadoo toos kuna socdo sawirradana halkan aynu ka galayno iyo xagganba waxa weeye dareenka dadweynaha ayaan u soo waxa weeye rasaas baa dusheeda ka dhacaysa madaxa ka dhacaysa ilaahay saaki shacabka ridii shacabka saaki arrinta ridis ridii ma haydi ashaye لايف برادر لايف بان ku faraxsanahay guusha Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo garab iyo hiil ugu noqdo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo wax kale oo aan u soo baxay waxa laga yaabaa barigii hore halkan waxaan u iman jiray arrimo kale laakiin markan taageeradaydu waxay ahayd Maxamed Cabdilaahi Farmaajo khudbadiisa oo baarlamaanka ka jeedinayay maalintii axadda waxaan ka dhageysanayay mobile baan ku yiri idaara television iyo hoos dhiga telefishinka gurigayga Burhaan ku dhiyo hoos halkaas ka dhageysanayay aniguna khudbada aniga saaxiibkiisii soo noqday marka runtii waxaan u imid maahay taageerada Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxaad bay tahay damaashaadka halka ka dhacaya askarta rastaasta ugu badan ee dhacaysa waxa weeye dareenka askarta maanta waxaynu nahay inaguna dareenka askarta ayaynu la wadaagaynaa waxa weeye Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynihii qof kasta oo Soomaali ayuu maanta madaxweyne u yahay sababtoo ah danihiisa ayuu ka talinayaa Soomaali kasta oo meel uu doonaha jooge waa u dan Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inuu halkan ka taliyo maanta waxa weeye marka waxa la doonayaa taageerada aad u haysaan Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waa inay noqotaa mid aan hadal ahayn socodkaygaas oo kale u noqda محمد عبد الله فرماجو
فرماجو فرماجو صوماليا وياي هذا ما ستاي waxaynu la dareemayna shacabka iyo dareenkooda ayaanu idin soo gudbinaynaa insha Allah magacyadiina Ismaaciil Abdullah Maxamed Ashraf Abdaali وليس وحوي أستاذ ورابعة يا فرماج أستاذ سيجارة إن شاء الله على الصومالي كرها هذا إن شاء الله كرها هذا بإذن الله وهي هطلع درين كذا نقدر إن توصل وجدتها مجا يا درين كاجا يا واحد القلوتي ما أنت كتير كداسون مجا وكيف حاجة ظاهر وحنا كروح نقول الله ولا إله مجا بسم الله مركل وضع حنا مهر علينا يا برلمان الصومالية وما أنت فرحتنا إنه سوى كذا عدك شعب درين كذا كترجمي مركل وضع حنا مهر علينا يا مدحويننا عصب محمد عبد الله فرماجة وحنا لنا هالنوراد وحنا معناه رجينا إنه درين كان يصير وخلف كان سوى كذا وترجمي دون ونحن وصوب بديك دون قبض كيس إن شاء الله الصومالية ما يسرع وحنا دينا كفى إذا سجلوا الشاي أنا قبل ما أنتم وأنا بدون وأنا يسرعنا هذا ما سنتهي واحد حسد مدن إنه كل شيء مقالة والله هو مقالة ومقالة واحد متسوقنا مقالة محمد عبد الله فرماجو ما أنت وحوية شعبك يوح اللي بانض وشبين عدك بيسيان لو ما يجين قبيل لو ما يجين ديجان dadka muqdisho waxa weeye taageer ayay u hayaan maxamed cabdilaahi farmaajo umay kala harin moobilada ayaa lagu wada duubanayaa moobilada ayaa la iga duubayaa moobilada ayaa munaasabada laga duubayaa intuba waxay ku jiraan barnaamij duuban iyo barnaamij toos ah munaasabadan waxa weeye halkan waxa laga yaabaa dadku inay soo quraan inay qadadii seegtay intuba waxa weeye waxa u diyaariyay taageerada maxamed cabdilaahi farmaajo waxaa laga sugayaa faragelinta shisheeye inuu ka joojiyo dhibaatada Soomaaliya haysata waa faragelin shisheeye inuu ammaanka sugo uma baahna malaayiin lacag oo kaga baxda ummaddu waxa weeye waa danyar waa dad saboola dhaqaalahooda iyaga u baahan uma baahna ciidamo yiraahda $1,000 bay qaadanaya askarigii bishii saraakiishuna intaasoo $1,000 bay qaadanaysaa malaayiin dollar oo loogu talagalay Soomaaliya inay ciidan shisheeye tagto looma baahna maxamed cabdilaahi farmaajo hadduu kaga dhabayn waayo aragtidaas waxa laga yaabaa shacabku inuu aragti ka duwan inay qaataan marka waxa weeye waxaan aaminsanahay inuu saaran yahay ay mas'uuliyaddaas ay saaran tahay arrimo badan baa laga rabaa amniga laga rabaa siduu u xoojin lahaa runtii nin kastaaba oo xil helaa waxa weeye isaga unba amnigiisa ka shaqeeya waxa weeye nin kastoo la doorto waxa weeye isagoo iyuunba amnigiisa ka shaqeeya laakiin waxaa la doonaya maxamed cabdilaahi farmaajo inuu ka shaqeeyo amniga shacabka oo dhan halka ku nool magaalada muqdisho waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu halista badan xagga amniga ugu halista badan waxyaabaha ay dadku tabayaan nabadgelyo darro waxaa la doonayaa istiraatiijiyad ku salaysan wada hadal ku salaysan bal dadkan muxuu ahaayay amni darrada keenaya bal in lagu fakaro keligii qori qura ma soconayo waxa weeye waa la dagaalamaya way dagaalamayaan keligeed ma soconayo qorshahaas waxaan u arkaa inuu noqonayo madhalays haddii aan lagu darin siyaasad lagu darin mufaawadaad lagu darin la wada fadhiisan oo madaxweynayaal badan oo yimi ama waxaa ku jiray gacan shisheeye oo doonaysay in meeshan ay noqoto meel bilaa nabadgelya waxa weeye arrimahaas laga rabaa muuqaaladaasaan lagu soo gudbinaynaa bal muuqaalada nala daawada
Somali جعش أنتي ربعنا حكومة